السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أمد الإسلام كمان سلام يا بعد السلام. وحان أركي حلي فيديو جمعيه كسهرية أو شيخ وين الشيخ شبيل الدوبي أو معلمين الصومالية كبه للدمري. معلمين الشيخ وحا وكشيء وحنا يكتران وحنا كمتران، لكن وحان ربع الشيخ أنا أشهد أنا وحان هاي قبر صومالية قبر مسلمة hooyo ilma haysato hoosta adiga masaajidka hoostiisa baan aniga ka shaqaysanayay oo meherad ku lahaa. Sheekh Shibilla wuxuu xambaareyn iyo dambiyada ay galeen uu aad ugu cadeeyay macallin dugsiga ugu dhow guriga saddexaad ama guriga afraad uu ku yaalo. Aniga waxaan ku dulmanahay hoostaada meesha aad kor ka qudbadeynaysid hoosteeda baan deganahay oo aan ku dulmanahay. waxaan ahay hooyo ilma haysato Nairobi waxaan u imi ilmahayga bas inuu wax iga barto. Quraan baa lagu xiftiyaa, wax baa lagu bartaa, heer baa lagu gaaraa baan maqlay. Sababtaas aan u imaaday Nairobi, sabab kale uma imaanin. meel yar oo meherada baan 2009kii bishii koobaad ilaa bishii koobaad ilaa bishii 11aad iga kiresneed. 11 bilood kirada waxaan u bixin jiray aad heshid waxaad ku shaqaysatid si ilmahaaga wax uu cuno bas uu uga helo. sanadkaas bishii 11aad markay ayada meeshii furay lacagan ku furtay oo kale markaan waa dahabkayga maan soo furay waan iibiyay suuqan geeyay waan gaday waan ku hagaajistay balaad baan dhigay darbigeen hagaajiyay meeshii dhan hagaajiyay alaabta oo baahnaan soo gatay meeshii saasa ku furay dhowr bilood oo furana corona markuu yimi masaajidkii waa la xiray. dadka masaajidka meesha soo gali jiray meesha masaajidka ku tukada baa soo gala meesha waa dhulka hoose maadaama dhulka hoose tahay dadka ku tukada oo qof qayb kamid oo baratay baa soo gasha. masaajidkii markii la xiray dayaa soo galay cid ma soo galeyn kiradii way nagu socotay. maxaan ku dhahaa masaajidkii markii la xiray saasi kiradii nagu socotay annagana bil la'aan noqonay oo wixii aan ka soo doonay annagana waan weynay wixii aan bil aadankana waan weynay oo kiradii waan bixin weynay. sababta masaajidkii waa la xiray. masaajidkii markii la furay haddana muddo badan ka bacdi bilo badan ka bacdi waysadii laga xiray cidba ma soo aadayso waxa soo aada wax yar oo kooban qofkii soo aadan intuu iska tukado iska bixin. adigu calaayad xal sanad kale oo waxaan galnay haddana cidhiid ah iyo bil la'aan iyo kira la'aan. alxamdulillah hadda waxaan isdhahnay waad ka baxaysaan. bishii koobaad aan isdhahnay waa kan iskoolaadkii la furayo waxa la furayo ayadoo aan bilaaban dhowr bari ka xasan tahay waxaana lagu soo rogay wax aad dab saari kartaan ma jirto. wax dab aad saari kartaan ma jirto. 3 meheradood baan ku naalaa 3deeniba warqadaas loo geeyay waxaana la yiri wax aad dab saari kartaan total ma jirto. waa la dhibsaday waxaad karinaysaan dab ma saari kartaan. warkiraana lagu leeyahay meesha ma shaqaynaynin nolosha hadda furfurmaysa ma jirtaa la dhahay. aniga waxa ii si dheer dhibtaas keligay oo hooyaday waayeel guriga joogto ilmayr guriga ii joogo baan ahay. gurigana waan soo caawiyaa meeshana waan caawiyaa. gabadhi shaqaalaha saanta ay fiirsay waxay tiri meel guri wax lagu soo karinayo guri wax laga soo qaadayo maca salaam waad mahadsantahay waan ka tagay keligay baa soo haray. qoraal baa u diray wiil walaalkay oo meesha managerka aan la hadlay waxaan ku walaalow aniga bishii 10keeda saas ay haysto shaqada leeyda iga tagay wax ma iska karsanaya waxa la karinayo waa shaah iyo wax yar oo bariis laakiin wixii kale waan joojinay oo wax la shiilayo ama kalluun ha noqoto ama chicken ha noqoto wax allaale wax ur sameynaya ma sameynin. markiiba aan u dacwooday arrintii ugu gudbiyay warqad baa la ii keenay waxa la igu yiri bisha koodeedana meesha waad ka baxaysaa bisha koobaadna meesha waynaad ka baxdid. maxaan ku dhahay amarkiina waad qaadan weyday lacagta leedin ku leeyahayna waynaad miiska soo saartid. miiska waynaad soo saartid. dad culimo waa la hadlay dad waayeelan la hadlay dad waaweyn baa la hadlay ila hadlay nimanka guddiga hooyaan hay ilmaan korinaya meeshan waxa aan ku furtay xitaa qof kasta waa ogyahay. markay sanad iga xirnayd oo kira aan bixinayay kira bil kasta meelaha aan ka keenayo bixinayay baan markii dambe waxaan go'aansaday lacag aan hel markaan arkay lacag aan ku furto kala heli karin dahabkayga inaan soo furo gato war meeshan lacag baa iga gashay waan hagaajiyay alaab baan keenay wax kastaan keenay
maxaan ku dhahay walaalayaalow xir iyo lacagtii bixi iskugu kay darina wax ma karin kartid xir lacagtii bixi 3 amaroo isdul saaran ha iskugu kay darina ma qaadi karo awoodeyda ma aha hooyaanahay ilmaan haysta waxaa la yidhi waxaa sidaa jira culimadii aan dirsaday iyo xitaa aan dhahay war guddiga hadda ay dulmayaan bal shiiku ha ogaada shiikha arrinteedii gaarsiiya maxaan ku dhahay waxaa la yidhi may arrintan waa dhammaatay waxaan rabaa shiikha inaan u sheego macallin guriga afraad ama guriga shanaad kuu jira dulmigiisa shiikho waad ka hadashay laakiin dulmiga hoostaada lagu samaynayo ya hoostaada dulmiga lagu samaynayo shiikh ma ku soo gaaray mise kuma soo gaarin shiikh hadduu ku soo gaaray kaa wax ka qabo hadduusan ku soo gaarin haddaan kuu sheegayaa gabadh Soomaali baan ahay hooyo dhalinyar baan ahay cunug baan haystaa cunugayga maxaan ku dhahay iskool ma aadin wallaahi oo billaahi oo tallaahi wilkayga ma iskool aadin iskoolaadkiina waa furan yihiin oo waa la furay ma aadin wilkayga iskool wallaahi oo billaahi oo tallaahi wilkayga saaka ma quraacanin maantana had saacadda aan hadda hadlayo oo fiidiyowga aan duubayana waa 12 iyo bar qofkii sida kale u garanaya waa duhurkii oo wax yar salaadii duhur ka dhiman tahay salaadii duhur adinkii wax yar ba ka dhiman inta hadlaya laga yaabaa hadii la adimo ilmahayga iskool ma tigin duhurkii oo ay tahayna ma quraacan waxaan ku quraacsanayna wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan haynin masaajid markaan maqlo dahabkayga bixin jiray waligii masaajid lacag kuma bixin ilaahay wuxuu igu ogyahay iga sareeyaa masaajid baa maanta wax loo qabanaya ama wax ka maqayn ama wax kasaas ka yihiin marka la dhaho dahabkayga bixin jiray maantana waxaan ku fikirayaa masaajid hadii lagu adimo agtiisa adoo maraya ma ku tukan doontaa ilaahay baa meel lagu tukado badan wadadana ku tuko laakiin masaajid hoostiisa inaan yar oo qabiil ku yimi oo qaraabays ku yimi oo kugu dulmayo oo kugu handadayo oo kuleeyahay wadanka adigu uma dhalan aniga u dhashay adigu uma dhalan aniga u dhashay ya oo maanta hadalkaygaas iga baxay aan hadlay ya laga yaabo amnigayga inuu saameeyo oo bari la xog sheegto la yiraahdo wadanka adigu uma dhalan ya ana u dhashay lagu dhaho oo maxaan ku dhahay heer kasta iyo hantidaad kasta la igaarsiiyay askar baad ku imaas hadaan xirin hadaan farayn sheekh waxaan leeyahay sheekh hoostaada culimada